guddida guud ee xumaan reebista iyo wanaag farista Somaliland oo uu hogaaminayo gudoomiyaha fulinta ee guddidaasi oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Ceerigaabo ayaa habeennimadii xalayto waxay ku qabteen jaamaca weyn ee magaalada Ceerigaabo kulan diimeed kaasoo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ay halkaasi ka soo jeediyeen culimadani muxaadarooyin kala duwan iyagoona si gaar ah uga hadlay colaadda soo noqnoqotay ee ka jirta deegaanka Ceelaf Weyn iyo deegaanada hoos yimaada iyagoona labada beelood ee halkaasi dega ugu baaqay inay nabad ku wada noolaadaan iyagoona halkaasi uga soo jeediyay muxaadarooyin kala duwan waxaana ay ku booriyeen bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka qayb qaataan nabadeynta Ceelaf Weyn iyo guud ahaanba gobolka Sanaaga ilaahayna subhanahu wa ta'ala aynu tala saarno ayaa walaalayaal muhiima haddaynu diinta ka fadhiisano cisiga iyo sharaftana way naga fadhiisanay waa waay haddaynu diinteena u kacno oo ka shaqeyno ummadda gurmad aynu noqono dawladda kuma ina xisaabtamin inagu ma isla hadlaynaa ka Soomaa kaalada waddanka ummadda dhulka ku nool inay muslimiinta ay sugayaan inaynu ka mid nahay waliya baad bay guddida wanaag fariiso ay halkan ka diraysaa waxay u diraysaa deegaanada colaaddu ay ka dhacday gobolka Sanaag gaar ahaan Ceelaf Weyn halkana waynu uga ducayn doonaa baaqa iyo fariintaynu u diraynaana waxa weeyaan Ilaahay ka cabsada subhanahu wa ta'ala nabadgelyada waxa ku jirta diintiina ina heshiisaan waxa ku jirta dantiina adduun iyo dantiina aakhiro qof muslim oo dhiigiisa la daadiyo waxaynu ognahay inay xaraam tahay ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قف مسلم دلا dhiigiisa daadiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaab badan buu isu daba dhigay naar buu gali doonaa jahannam buu gali doonaa wuu ku waari doonaa cala Ilaahay baa ula socota oo Ilaahay baa u cadhooday intaas oo ciqaab ay isu daba yahay waxaynu markaa u diraynaa sida in badan loo diray war Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada wanaag farista iyo xumaan reebista inaynu markaa ku amaananahay dhammaanteen xilliga wada saaran yahay aayadda labaad ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu faray inaynu isku taagno amalkan wuxuu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa'ika Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle Saab TV Ceerigaabo adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida